Jeelowgaadeen waxa uu ku yaalaa waqooyi bari ee caasimadda deegaanka ee magaalada Jigjiga. Waxa uu u jiraa bartamaha magaalada masaafo dhan 3.2 kiiloomitir. isku wareegga jeelku waxa uu ka kooban yahay 2 gebi ama xero oo isku daboolan. haddii aan si kale u dhigo waa gibida koobaad oo ay dusha kaga wareegsan tahay gibida labaad. labada gibi waxa kala xidha deer dhererkiisu yahay 52 mitir oo uu dusha kaga dahaaran yahay silig xayndaab ah. isla xeradan koobaad waxa ay u qaybsan tahay 2 qaybood oo kala ah qaybta bari iyo qaybta galbeed. waxaana kala qaybiya deer ka samaysan shub iyo jaajooro oo dhexda isaga furan iyo bannaan la hareeyay oo caan ku ahaa ereyga madraga oo ah erey af Axmaari ah oo macnihiisu yahay fagaare. haddaba waa xerada koobaad midka ay maxaabiistu ku xidhnaan jireen ee ay tacadiyada iyo xasuuqa ugu ba'ani ka dhaceen walow xerada kore ee labaad ay ahayd meel la isku ciqaabo. qaybtan hoose ee koobaad ayay ahayd meesha xarunta u ahayd maxaabiista rasmiga ah ee ay dawladdu aaminsanayd in ay dambiilayaal ahaayeen waxay dooni ha ku eedaysnaadaane. qaybtan oo khaas ku ahayd ragga oo kaliya waxa ay ka kooban tahay 20 guri iyo masjid ka samaysan jingada oo ay maxaabiistu u adeegsan jireen masjid iyo guri ahaanba. kan guri iyo masjidkan waxa ay u qaybsanaayeen 2 qaybood ee isla gibida aan horay u soo sheegnay. guryaha koobaad, labaad, saddexaad, afaraad, shanaad, 12aad, 13aad, 14aad, 15aad iyo 16aad waxa ay ku yaalaan qaybta bari ee xeradan. lixaad, toddobaad, sideedaad, sagaalaad, tobnaad, 11aad, 17aad, 18aad, 19aad iyo masjidkuna waxa ay ku yaalaan qaybta galbeed ee xeradani koobaad. dhinaca kale marka laga eego xeradan koobaad ee 2 qaybood ka koobani waxa ay ku fadhidaa 80 mitir oo dherer ah iyo 104 mitir oo ballac ah oo u qaybsan 2 qaybood ee isla xeradan halka 9 guri oo ka mid ah 20 guri ay musqulo gudaha ah leeyihiin 11 kalena aysan lahayn wax musqulo ah walow xilliyadii dambe qaar ka mid ah loo sameeyay musqulo macmal ah.
halkani waa Jilowgaadeen waa hoygii madooba ee deegaanka Soomaalida afarta gees ee deerka xaradan ku hareeraysan waxaa dusha kaga yaal tawaano amaba dhismayaal sideed oo shub ah kuwaasi oo ku soo foorara gudaha xaradani koobaad taasi oo ay ujeedadeedu tahay in ilaalada ciidanka asluubtu ay toos oo la socdaan dhaqdhaqaaqa maxaabiista waxaa jira 8 fooq oo koora gaad ah oo waardi laga qabto 8 waardi waxa weeyaan waa ay kala hooseeyaan qaybi xagga gudaha ayay ku soo foorartaa oo waxay la socotaa dhaqdhaqaaqa maxaabiista si ruuxii dhaqaaqa ama si gidaarada isugu soo daya ama kuba hoos dhuunta ama se maxaabiista marka la xereeyo kaga hadha gudaha si ay ula socdaan iyo dhaqdhaqaaqa habeen iyo dharaarba qaybta dambe ee afarta dambana wixii ka soo gudba afartoodan hore ee gudaha ku soo foorarta ayay iyaguna la socdaan oo markaa waxa weeye iyaguna waardi ka yihiin intaa waxa dheer qaybta albaabka oo iyaduna laba waardi isku daba taala intaa iyadana waxa sii dheer 8 fooq ee gudaha ku jirta 8doodii kale oo banaanka iyaguna ah oo iyaguna gaar ah oo istaba fadhida oo iyadana ciidan isbeddelaa jirta laga bilaabo meesha koora gaarka ah ee xerada laga soo galo ee xariga macna waxa weeye laga dejiyo baabuurta marka ay soo galayso oo wareeg ilaa wareeg ah xilliyana kuwa kale oo ka sii dambeeyay iyaguna 8 sii jiray laakiin tii marka dambe waa la isku soo ergaabiyay taasoo looga dan lahaa inaan marnaba waxa weeyaan dadka meesha ku xidhani ayna isku dayi karin hawaysanna karin inay meesha ka baxsadaan haddii ay hawaystaan oo ay macna isku dayaanna ilaalooyinka kala duwan ee isdaba fadhiyay mid haddii uu ka badbaaday inuu ka labaad ka badbaadin ta kale kuwa banaanka ihi cadow xagga dibadda ka yimaada iyo dadka shacabka ah xerada soo galaya labadaba iyadana waa loo dhigay oo waxa weeyaan macna sigijiba iyagana u ahaayeen waardina way u ahaayeen afarta gees ee deerka xeradan labaad ku wareegsan waxaa sida qaybtaas koobaad dusha ka saaran ilaaliyayaal dhismayaal saaran taasi oo macnaheedu yahay in jeelku lahaa 8 gaadh oo kala hooseeya marka laga reebo ilaalada iridda kura ah ee xabsiga si buuxda ugu wareegsan xerada labaad waxaa ku yaala wixii adeeg ah ee uu jeelku leeyahay sida xafiiska maamulka jeelka kliniga kushiinka ama jikada iyo xabsi ka go'an xerada inteeda kale oo lagu xidhi jiray dumarka oo ka kooban 5 qol kala soocidda dumarka iyo ragga maxaabiista ihi ma ahayn mid loogu danaynayo maxaabiista sida naloo xaqiijiyay waxaa la iiga sheekeeyey inuu jiro furaash la yidhaahdo furaashka xogta gabadha habeenka laga soo saaro guriga qolka kaloo gaaruu furaashku yaallaa halkaa la keeno furaashka xogta waxaa lagu yidhi ninka habeenka iska leh jeelka ama ninka jeelka mas-uulka ka ah yaa fadhiisan gabadhuu doonaa loo keeni kadibna waa la faraxumaan gabdhaha kala soocidda ragga iyo dumarka horta sideeda banaanba dastuuri ahaan ragga iyo dumarka isku meel laguma xidhi karo in la kala sooco waa waajib waana waxa weeyaan nidaamka macna waxa weeye isku meel laguma xidhi karo waayo waa rag iyo dumar isku meel lama gali karaan gurina laguma wada xidhi karo gibudna way u kala xidhan tahay taasi waxay ahayd balaayinkii hore ee xabsiga loo dhigay yaa guryaha dumarkana gooni loo dhisay kuwa raggana gooni loo dhisay laakiin tii waxa weeye qaabka loo dhaqmay marka dambe ee xukuumaddu ay waxa weeye xukunkeedu uu khalkhalay
ay dadka dib ugu soo noqotay dumarkii degaankana waxa weeye aad macna waxa weeye ay meesha ugu soo bateen waxaa dhacday dumarka habeenkii inta la saaro oo la yidhaah xog baan ka qaadaynaa meelaha ay waxa weeye kuwa mas-uuliyiinta ah ee meesha xukumayay sida komishineeradii markaa meesha xukumayey taliyayaashii xabsiyada kuwa ka imanaya ma garanaysayay xukuumadda heer degaan ka imanaya sida ma garanaysayay sheekh mukhtaar oo kale cabdiraxmaan laba gollo oo kale iyo wixii lamid ah ay ka imanayeen waxa weeye ay kor nagaga imanayeen oo habeenkii intay baabuurta halkan soo dhigtaan naagtii meelheblaayo laga soo qabtay u yeedha waxyaabo caynkaasa oo habeenkii waxa weeye iyadoo dumarka mamnuuc ka tahay in macna guryahooda laga saaro ay goobaha ay ku qayilayaan ay ugu yeedhan jireen marka waxaa kale oo jirta iyadana kuwa kale oo iyadana la leeyahay waa rag saxanayaal ah oo laftoodu xidhan hadda oo gabdhaha iyaguna iskaga dhex jiro oo la leeyahay gabdhahay saxayaan oo qaal macna way ka qaadayaan kuwaasi marmar waxaba dhacaysayba gabdhaha xitaa ilaalada ah in la yidhaahdeen kaba baxaba meesha aad wax ka ilaalinayso xerada ka baxa marka hore way saxnayd qaabka kala soocidda dumarka iyo ragga laakiin marka dambe waxa weeyaan isdhaqaad baa ka yimid aan maxaabiista caadiga xidhnayna kuwa iyaga gooni macna waxa weeye loo wato oo haween kale loo dhaxgeliyay ragga ku xidhnaana waxa ay ahaayeen kuwa muhiim u ahaa maamulkii hore ee cabdi maxamuud cumar kuwaasi oo loo yaqaanay VIB-da hase yeeshee iyagu ka madax bannaanaa tacadiyadii iyo ciqaabtii darneed ee lagu hayay maxaabiista kale meesha VIB-da la yidhahdo waxa weeye horta way jirtay marka horeba maxaabiista lagulama soo xirinayn dadka iyaga meel gaara la geynayey waxay ahayd goob xagga dambe ah ayaa la geyn jiray waxaa la odhan jiray macna waxa weeye raggani iyagu waa rag gooni ah cuntadoodu xitaa gaar bay ahayd oo marka ay dadkan cunto la'aanta lagu riday ee waxa weeye raashinkoodii 3 daloolow laba la goostay oo jeebka lagu shubtay oo nafarkii halkii nafar 3 ruux ay ku cunayeen maxaabiistu iyagu waxa weeye raashin gaar iska lahaayeen oo khudaar leh oo wax walba leh oo nidaamsan bay lahaayeen marka waxa weeyaan qaybta dambe iyaguna deganaayeen oo waxa weeye kuwa si gaar ah macna waxa weeye loo kulkuliyay iyaguna kuwa iska ahay haddaba maxaabiista xerada koobaad iyo kuwa xerada labaad waxa ay ku kala gadisnaayeen xagga noloshoodu aad bay uga fiicnayd kuwana waxa weeye si waxa loola dhaqmayay aan bini aadminimo ahayn kuwana kuwa la kulkulinay ahay laakiinse dumarka maxaabiistii iyagu waxa ay la meeqaam ahaayeen maxaabiista xerada gudaha ku jiray ee xerada koobaad waxa ayna xaaladoodu ahayd sida xayn ari ah oo ku dhex xidhan badweyn waraaba ah gabdho liir waa lagu kufsaday haweenarka kuwii iyo xaqiiqo qiranayo anaga waana la kufsaday waana la soo farxumeeyay haweenarka iyagoo qiranayo waana la farxumeeyay oo maxaan ku raaday maalin uu soo wareysay iyagu laftooda isku wada qarxeen oo yiraahdeen waana la kufsaday dambeelani loo oran jiray hadda magacyadoodii ma sixi kareen gabdhihiisa waan wada garanayaa oo kaadida xajsanay haweenarka waana reejarareen gabdhahaasi gabdho kale oo dhagax madowana oo reeradana iyagu way iska lahaaba oo qarxitaa ay uru yeesheen dumarka inta waxa weeye xarka loo sooxday yaa mareega lagu xidhxidhanayayba markaas inta qool yar loo qaato yaa lagu dhakabinayayba dhag madax la garaacay raggiina wuu ku dhex jiraa oo la leeyahay waa rag saxan oo ma garanaysaay hebel iyo hebel baan ku ognahay ragga iyaga waa la iska wada garanayaa marka waxa lagu matali karaa xayn ariya oo horin weera loo xireeyay oo midiba jiidanayo lax jiidanayo ayaa lagu matali karayay marka dumarka markii dambe qaabka loola dhaqmayay jeelkan waxaa la aasaasay sanadku markii uu ahaa 1991 tirsi taariikheedka reer Yurub
xilligii maamulkii dowladda Khadar Macalin isagoo uu jeelku qayb ka ahaa mashaariic kaabayaal horumarineed ahaa oo xisbiga dimuqraadiga Soomaalidu fulinayay deegaankeena marka dib u eegto taariikhda jeelasha ka jiray waxay ahaayeen kaliya xabsiga jigjigaad oo 80 qof qaada xabsi kale ma jirin oo dadka lagu xidho xarumo station iyo xiriir military bay ahaay taas maxay deegaankeena ka dhigtay qofkii dambi gala ama wuxuu ahaa in la dilo ama la iska sii daayo ma lahayn meel xabsi oo dib loogu naxo marka nidaam military oo istibdaadi ayaa deegaanka dalka ka jiray taasuna mayna abuurin waliba dawladda Ingiriiska ayaa dhistay xabsigan jigjiga ka jira taa iyadoo laga duulayay inaan xabsi habaysan oo u dhameystiran yihiin waxyaabaha adeegyada ah ee qofka maxbuuska ah isla markaasna xuquuqihiisa meel lagu dhowri kara inaan sameeyno waxay ahayd in meel dugsi ay noqoto farsamada dib loogu dhaqan celinayo dadka gafafka gala si ay bulshada iyaga oo xirfado wata ay ugu soo noqdaan marka xilligaas ayaa xabsiga la qorsheeyay dhismihiisuna noocaas ahaa qandaraas baan soo dhajinay qandaraaskiina Ibrahim Xayd baa ku guuleystay oo dhisay marka in ay sanadba sanadka ka dambeeya dib u habeyn iyo waxyaabaha kale adeegyada soo baxa lagu kordhiyo ayay ahayd qorshuhu waxaana loogu talagalay inuu u shaqeeyo sida xabsiyada kale ee dalka sida uu dastuurka dalkeena iyo ka deegaankeena uu tilmaamayo qofka maxbuuska xuquuq u leeyahay xuquuqahaas waxay ku dheegan yihiin constitutionkeena qodobada asaasiga ee dastuurkeena ayay si cad ugu qeexan yihiin marka meel xuquuqihiisii qofka maxbuuska ee eedaysanaha xuquuqihiisa si buuxda loogu dhameystiray laguna dhaqan celiyay noqotay ahayd dhammaan noocyada kala duwan ee farsamada in ay meel tababar lagu siiyo dadka dhalinyarada ah oo inta badan shaqo la'aantu ay u geyso in falal dambiyada oo tuuga iyo waxyaabo la mid ah sameeyaan meel xirfado loogu abuuray inay noqotay ahayd marka la barbar dhigo jeelka 80 qof qaadayay ee magaalada jigjiga bartankeeda ku yaalay iyo kan laba jeel oo farqi weyn u dhaxeeyo kala duwan ayay ahaayeen oo dad badan la qaadi kara tirada hadda la leeyahay waa lagu xidhaa ma aha looguma talagelin inuu qaado tiro kooban oo in ka badan 1000 qof qaada ayaa loogu talagalay isla markaasna loo sameeyo adeegyadii asaasiga ah ee qofka maxbuuska uu xaq u lahaa jeelkan oo magaciisa rasmiga ahi uu ahaa xabsiga dhexe ee dawladdeegaanka Soomaalida ayaa markii dambe caan ku noqday magaca jeel ogaadeen haddaba sidee ayuu ku baxay magaca jeel ogaadeen maxaase sabab u ahaa haddaba waa kan Axmed Sheekh Bashiir Axmed oo ka mid ah maxaabiistii ugu horeysay ee lagu xidhay jeel ogaadeen oo ka warbixinaya sababtii uu ku baxay magaca jeel ogaadeen jeelka hortiisa ama iyo meel ka koreyso oo dhagaxa in gubri xaqiisa xigta waxa ku jiray waxa yaalay dhowr qoys oo aqal Soomaali uu meeshaas aqal Soomaali uga dhisan yahay dhowrka qoys waxay ahaayeen dadka deegaanka aqal Soomaaliyada markii ay arkeen meeshan jeelka in dad keenay waxay ogaadeen ama soo booqdeen dadkii askartii iyo waxbay la hadleen waxaana loo sheegay in dadka meesha ku xiran oo 8 nin iyo hal gabadh 7 nin iyo hal gabadh 8 qof aan 7 raga iyo hal gabadh dadkaasi markii ay weydiiyeen askarihii ay yiraahdeen waa ay dadkani waxay u sheegeen askartii in ay 8 aanu nahay ogaadeen sida awgeed dadkii deegaanka ee agagaarka iyaga aqal Soomaaliyada ku lahaa waxay isweydiiyeen in badan meeshii dad baa la keenay la yiri lagu xidhay oo dadku waa ogaadeen alla meeshu waa jeel ogaadeenba horta magaca jeel ogaadeen qaabkaas ku baxay waxaanu waqti xaadirkan taagannahay
fiida sare ee looga baxo magaalada Qabri Dahar dhinaca maamulka magaalada Goday waxaanu soo socdaalay 410 kiiloomitir oo aanu magaalada Jigjiga ilaa iyo Qabri Dahar aanu uga soo socdaalay socdaalkanagu wali waa uu sii socdaa oo waxaanu rabnaa in aanu socdaalkanaga uu sii socdo ilaa iyo 175 kiiloomitir oo kale waxa uu socdaalkanagu ku wajahan yahay magaalada Goday ee xarunta gobolka Shabeelle halkaasi oo ay ku sugan tahay Rumaan Cabdi Oomaas oo ah gabadhii ugu horeysay ee albaabada loogu furo jeel ogaadeen haddaba waxaanu doonaynaa in aanu Rumaan Cabdi Oomaas aanu ku soo wareysano magaalada Goday socdaalkanagu iyada kaligeed ayuu ku wajahan yahay in aanu markaasi magaalada Goday aanu markaasi ugu tagno waxaa laga qabtay aniga magaalada Jigjiga xilligii Daawud haystay bayna ahayd waxaa laga qabtay 8 saac iyo badh habeenimo ee dambe markaa waa la xidhay xagga Garbacsa la ila kacay anoo moodayeen xirada Garbacsa la geeynayo ayaa waxa la ii leexiyay xagga jeelkana jeel cusub oo ahaa markaa jeel dad lagu xidhi jiray ma ahayn marka xagga jeelka ii leexiyeen baan gartay marka inay jeelka igu wadaan jeelka oo cid la geeyay aan ka ahayn ninka waardeeya waxaan ka ahayn muuna joogin sida jeelka loo dhisay ruux koobaad ee lagu furo xabsi ahaan loogu furo anigu ahaa 4 habeen markaan ku xidhnaana rag dodoba ayaa la iga daba keenay maana arkayn anu markaa la keenay laakiin ka bacdigii baan ogaaday in 7 nin la ay jeelka ku jiraan kolka ayaguna guriga ku xidhan yihiin ana qol baan ku xidhana isma ogin qol baan 4 habeen ku xidhnaa 4 habeen markaan ku xidhnaa ayaa la iga furay cunto la isiiyay nin askari ah baa ii sheegay oo yiri 7 ruux oo kala la keenay kadib xal la sameeyay jeel caadi ah laga dhigay jeeda maxaabiisihii baa la keenay cid kasta waxay doona ku eedaysnaatay ama ona laf ama itixaad ama tuugo ama waxyaalo fara badan ama dil wixii dadka lagu soo eedayn jiray maxaabiisaha baa la keenay 300 oo nin ayaa waagi dambe yaa ku xidhnayd wax dumarana kaliya baa ku xidhnaa dad fara badan oo wehel aan haystay dad badan baan ahayn runtii ma dhibaato amaanan qabina lama dhibaatayn jirin jeelku waaga nafis iska ahaa bil markaan joogno neef geelana loo qali jiray anjeeradana aan la siin jiray ruuxi u baahan marka maan lama dhibaatayn jirin